السلام عليكم بوغاغا تاريخ markaad dib u raacdeen dhahagu waxay qabanayaan bogag ifaayo waa bogaga lagu qoro dadka taariikhda baalka dahabka ka galay halkan waxaan kugu soo gudbinaynaa bogga ifaaye ee taariikhda halyeega Umar al-Mukhtar libaaxa Sahara sheekha mujaahidiinta waa magacyo kala duwan oo lagu yeeri jiray Umar al-Mukhtar waa nin aan aqoonin aqbalaad gumeysiga iyo u hoggaansanka soo duulayaasha mid ka mid ah dawladihii ugu xoogana xilligaas ee ciidamo aan dhamaadkooda la arkin ugu tala gashay inay kula dagaalanto Umar al-Mukhtar waa gumeysiga Talyaaniga ee dalka Liibiya hadalladii ugu horeeyay ee uu yiri Umar al-Mukhtar markii ugu horeysay ee uu bilaabay halganka ka dhanka ah gumeysiga Talyaaniga waxa uu ahaa waxaan u dagaalamaynaa in dagaalku waajib nagu yahay diinteena iyo dalkeena si aan uga difaacno soo duulayaasha dhulkeenana uga saarno wada saddexaad oo aan arrinkaas ahayna ma jirto Umar al-Mukhtar sanadkii 1858 ayuu ku dhashay deegaanka Batnaan ee gaarka Barqa wuxuu ku soo dhex koray qoys akhlaaq wanaagsan aana dad lagu yaqaan tilmaamaha wanaagsan ee islaamka laakiin Umar al-Mukhtar wuxuu ku soo koray agoonnimo aabi xajka ayuu ku dhintay waxaana tarbiyadiisa la wareegay Ahmed al-Qaryani oo ahaan inay aad iskugu dhow yihiin aabaha Umar al-Mukhtar kaasoo si fiican u tarbiyeeyay barina Quraanka Kariimka kadib xifdinta Quraanka Umar al-Mukhtar wuxuu ku biiray mahad islaamiya wuxuuna 8 sano ka baranayay culuumta sharciga dadkii noolaa xilligii Umar al-Mukhtar iyo kuwii akhriyay taariikhdiisa haddii ay noqdaan muslimiin ama xitaa reer galbeed aad ayay ugu bogaadiyeen ninkan asagoo 70 jirka qoriga garabka saartay si uu dalkiisa uga difaaco gumeysiga wuxuu ahaa libaax dhex marayay saxaraha Liibiya ishana ku hayay gaadiidkii gumeysiga ee dhex marayay saxaraha dhulkiisa sidii libaax duurka ku jira ayuu afweynta jibin jiray kolonyooyinka gumeysiga ee Talyaanigu uu leeyahay ee dhulka saxaraha ku soo xadgudba dagaalka ka dhanka gumeysiga Talyaaniga 1911 Talyaanigu wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhana dawladda Cuthmaaniyiinta ku sugan dalka Liibiya Talyaanigu ciidankiisa cirka ayuu markii ugu horeysay ka soo dejiyay magaalo xeebeedka Benghazi xilligaas Umar al-Mukhtar wuxuu ku sugnaa magaalada ka faraya saxaraha Liibiya booqasho ayuu ugu imaaday imaamadii Sanusiyiinta markii uu ka soo laabtay saxaraha asagoo dhexda ku soo jiro ayaa loo sheegay warka in Talyaanigu ku dagay Benghazi isla markii wuxuu u kicitimay dhinaca Zaawiyat al-Qusuur wuxuuna bilaabay diyaarinta rag iska caabin laha gumeysiga muddadii oo hawshan ku jiray kun askari ayuu diyaariyay Umar al-Mukhtar wuxuu saldhig ka furtay deegaanka Qaruuba kadibna wuxuu u wareegay deegaanka Rajma asagoo oo ku biiray ciidankii Cuthmaaniyiinta intaas kadibna Umar al-Mukhtar meel 20 kiiloomitir u jirta Benghazi ayuu saldhig ka furtay asagoo halkaasi ka soo diri jiray guutooyinkiisii beegsanaya gumeysiga Cuthmaaniyiinta iyo wax iska caabinta Liibiya si wada jir ah ayay dagaalka ugu jireen laakiin arrin la yaab leh ayaa dhacday oo Umar al-Mukhtar dhabarjab ku noqotay arrinka dhabarjabka ku noqday Umar al-Mukhtar waa ka bixitaanka Cuthmaaniyiinta dagaalka 1912 waxaa qarxay dagaalkii Balqaan hadafkiisuna ahaa in Cuthmaaniyiinta laga qabsado dhulkoodii qaybta Yurub taasoo keentay in Cuthmaaniyiintu heshiis xabad la galaan Talyaaniga isla markiiba Cuthmaaniyiintu waxay faarajiyeen xeryahoodii magaalada Barqa arrinkaasna xadinayo ku noqday Liibiyaanka laakiin Umar al-Mukhtar uma istaagan arrinkaas ee dagaalkii ayuu halkiisa ka sii waday farqi weyn ayaa u dhaxeeyay dhanka hubka iyo saanada militariga ragga Umar al-Mukhtar iyo ciidanka Talyaaniga fardo ayuu taangiyada uga hortagi jiray qoryo gacmeed ayuu sidoo kale kula dagaalami jiray diyaaradaha wuxuu ahaa libaax laba lugood ku socdo magaciisa kaliya ayaa argagax gelin jiray ciidanka gumeysiga Talyaaniga intii uu socday dagaalka Talyaaniga waxa ka dhacay isbedel dhanka xukunka oo talada waxa la wareegay faashiyiintii Benito Mussolini kaasoo hogaamiye cusub oo lagu magacaabo Bon Giovanni u soo diray Liibiya wuxuuna gacanta u galiyay ciidan badan kaasoo si baahnimo oo la dhaqmay Liibiyaanka faashiyiintu waxay isku dayeen inay wada hadal la galaan Umar al-Mukhtar iyo ragiisa si ay u ogaadaan qaabka uu fikirayo laakiin Mukhtar wuxuu ugu jawaabay ma galayno wada hadal aanan ahayn ka bixitaanka dalkeena 1930 ciidankii Umar al-Mukhtar iyo Talyaaniga waxa dhex maray dagaal lagu riiqmay oo suulasha la iskala baxay dagaal aan isku dheelitirnayn wuxuu ahaa dagaal uu Talyaanigu si fiican ugu soo diyaar garoobay laakiin Umar al-Mukhtar kuma tala jirin oo konton fardoole ah ayuu watay laakiin jilibka ayuu u dhigtay Talyaaniga dagaalkaasi waxa ku dhintay raggii Umar al-Mukhtar uu ugu caansanaa waa raggii hoggaanka hayay oo uu ku faani jiray sidoo kalena Umar al-Mukhtar asagoo dhaawaca ayaa lagu arkay goobta dagaalka kadib markii uu dagaalku istaagay ahaana 73 sano ayuu jiray Talyaanigu ma aysan ogeyn markii hore in Umar yahay ninka dhaawacmay laakiin markii ay ogaadeen ayay u wadeen dhanka hoggaankooda
iyo saldhigga ay ciidamadoodu joogaan. 4 maalin ayaa lagu xiray halkaasi. Talyaanigu waxay dhiseen maxkamad bug ah amaba aan jirinin oo aanan cadaalad ku dhisnayn, laakiin Cumar al-Mukhtaar si geesinimo ah ayuu uga jawaabay dhammaan su'aalihii ay weydiiyeen. wuxuu qirtay weliba asagoo oo ku faanaya in uu dagaalku jihaad ahaa isla markaasna bartilmaameedsanaya gumaysiga. maxkamaddu waxay ku xukuntay dil daldalaad ah. 73 sano ayuu kor u dhaafayay Cumar al-Mukhtaar. 16 Sebteembar 1931 saacadu markay ahayd 9 subaxnimo ayaa fagaare ku yaala Banqaasi Talyaanigu ku daldaleen Cumar al-Mukhtaar, geesigii u dagaalamayay xornimada dalkiisa. gumaysigu dad badan ay isugu yeeray si ay u daawadaan dilka sheekha mujaahidiinta waa cabsi gelin iyo argagax abuur, laakiin wax cabsi kama muuqanin Cumar al-Mukhtaar sidii libax mukulaala ku hareeraysan yahay ayuu u taagnaa. inta uu shahaadada ku dhawaaqan hadaladiisi waxaa ka mid ahaa: annagu isma dhiibno, waan guulaysanaa ama shahaado ayaan helnaa. dilkayga dhammaashada jihaadka iyo halganka ma ahan, waxay idin sugayna la dagaalantaan jiilka soo socda iyo kan ku xigo. cumrigayga wuu ka dheeraan doonaa cumriga kuwa hadda ay dilaayo. kadib dilka sheekha mujaahidiinta waxay u soo baxay ummadda islaamka inteeda badneed ku jirtay gumaysiga Yurub. masjidka weyn ee Umayyiinta ee ku yaala Dimashq ayaa sidoo kale looga tukaday janaasatul ghaib. inta badan wadamada muslimiinta janaaso salaatul ghaib ayaa looga tukaday Cumar al-Mukhtaar. sanadkii 1981 ayaa halganka Cumar al-Mukhtaar laga sameeyay filim loogu magac daray libaaxa saxaraa oo ah filim aad looga soo shaqeeyay qoritaankiisana ka qayb galeen abwaano waaweyn iyo taariikhyahanno muslimiina. waa filim si wanaagsan uga hadlay taariikhda Cumar al-Mukhtaar, dad badanna baray qisadiisa. waxaa kaalinta Cumar al-Mukhtaar matalay filimkaas jilaaga Meksikaanka ee Anthony Quinn oo si wanaagsan u matalay kaalinta Cumar al-Mukhtaar.